السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الملكس joogtaan kusoo dhawaada janaalkayga Bashir Maxamuud Bardari barnaamijka saaka iyo suuq kaliibsiga ciyaartooyda aan kusoo qaato wararka ugu xiisaha badan dhanka suuqa iyo warbixinaha isla ku qato dhanka suuqa. Wararka dhanka suuqana waxaa kamid ah Manchester United ay isku diyaarinaysan 120 milyan oo ganay kusoo qaataan Juventus iyo Argentina hadiga weerarka uga ciyaara Paulo Dybala 25 jir haddii weeraryahankooda Romelu Lukaku 25 jir uu isaga dhaqaaqo xilli ciyaareedkan kooxda ku ciyaarta gida caalamiga Old Trafford. Wararka dhanka suuqa kamid ah wariyaankii hore ee Tottenham Hotspur Clive Allen ayaa sheegay in kooxda North London ka dhisan loo baahan yahay in si weyn ugu tababarayso inay dib ula socoto xidigoodii hore ee Gareth Bale 29 jir kaas gudoodka ah kooxda kubadda cagta Real Madrid. Wararka dhanka suuqa waxaa kamid ah waxaa socda wada hadal ku aadan in heshiisku uu kordhiyo AC Milan oo daayirkooda goosh u qabta 20 jirka lagu magacaabo Gianluigi Donnarumma kaas oo kooxda ku sii hoon doona tan iyo 2024 hadii ogolaado in kooxda heshiisku kula jiro uu kordhiyo waana mid kamid ah waddaga ugu muhiimsan ee shabaqa ee kooxda kubadda cagta AC Milan. Wararka dhanka suuqa waxaa kamid ah hogaamiyihii hore Real Madrid Zinedine Zidane oo loo soo bandhigay in uu dib u maamulo qabtana shaqada macalinimo ee kooxda gida caalamiga ee Bernabeu ku ciyaarta iyo gabaanba iska diiday in mar kale uu qabto hogaanka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo ku jirta mid kamid ah xaaladaha ugu xumaa ee kooxdan ayaana gabaanba laga soo ciribtiray tartanka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League waxaana ay ku guda jirtaa mid kamid ah xaaladaha ugu xumaa ee xilli qaar kamid ah ciyaartoydana ay kooxda gadood ka yihiin halka macalinku laftigiisana dhaleeceyn ballaaran loo jeedinayo falsafada iyo qaabka uu maamulayo kooxda kubadda cagta ee Los Blancos. wararka dhanka suuqa waxaa kamid ah Ajax khadkooda dhexe Frank de Jong oo u gadan kooxda kubadda cagta Barcelona 22 jir ayaa sheegay in kooxda uu ku biiri doono ee Barcelona ay u sheegtay inuu ka soo ciribtiro kooxda kubadda cagta Real Madrid tartanka horyaalada Yurub. xidigan u dhashay wadanka Raaska ayaana ku biiri doona kooxda ah Championka La Liga xilli ciyaareedkan.